injiilka sida Luukas u qoray cutubka 20aad maalmaha midood intuu Ciise dadka macbudkii wax ku barayay oo injiilka kaga dhawaaciyay waxa dhacay in wadaadada sare iyo culimada ula yimaadeen waayeelada oo la hadleen oo ku yiraahdeen noo sheeg amarkeebaad waxan ku samaysaa oo yuu yahay kan amarkan ku siiyay markaasuu u jawaabay oo ku yiri aniguna hal baan idin weydiinayaa ina sheega baabtiiskii Yooxana ma wuxuu ka yimid xagga jannada mise xagga dadka dhexdooda ayay iskala hadleen iyagoo leh haddaynu nidhaahno xagga jannada wuxuu odhanayaa maxaad u rumaysan weydeen laakiin haddii aynu nidhaahno xagga dadkan oo dhan ayaa ina dhagxinaya waayo waa la aaminsiiyey inuu Yooxana nebi ahaa markaasay waxay ugu jawaabeen inaanay garan meeshuu ka yimi ciisena wuxuu ku yidhi aniguna idiin sheegi maayo amarka aan waxan ku sameeyo wuxuu bilaabay inuu masaalkan dadka kula hadlo ninbaa wuxuu beertay beer canaba oo niman beerrey u karaystay markaasuu dal kala tegey oo wax badan ka maqnaa goortii xilligii mid ayuu addoon u soo diray beerreydii inay isaga siiyaan midhaha beerta laakiin beerreydii ayaa garaacday oo wax la'aan dirtay haddana wuxuu diray addoon kale kaasna way garaaceen oo ceebeeyeen oo wax la'aan ku direen haddana mid saddexaad ayuu diray kaasna way dhaawaceen oo iska tuureen markaasaa sayidka beerta wuxuu yidhi maxaan sameeyaa waxaan dirayaa wiilkaygan aan jecelahay malaha way maamuusi doonaan laakiin beerreydii goortay arkeen waxay isku yidhaahdeen kan waa kii dhaxalka lahaa aan dilne si aynu dhaxalka u lahaano markaasay beertii canabka ahayd dibaddeeda ku tuureen wayna dileen haddaba sayidkii beerta canabka muxuu iyaga ku samayn doonaa wuu iman doonaa oo beerreydaas dili doonaa oo dad kalena ayuu beerta canabka u dhiibi doonaa goortay taas maqleen waxay yidhaahdeen yaanay noqon laakiin wuu eegay oo ku yidhi haddaba muxuu yahay waxaan la qoray dhagixii kuwa wax dhisaa ay diideen kaasi wuxuu noqday madaxa rukunka mid kasta oo dhagaxaas ku dhacaa wuu jajabi doonaa laakiin kanuu ku dhaco wuu burburin doonaa saacaddaas kudheeda ayaa culimadii iyo wadaadadii sare dooneen inay isagii qabtaan laakiin dadkay ka baqeen waayo waxay garteen inuu masaalkan iyaga kaga hadlay wayna dayayeen oo ay u soo direen jaasuusiin iska dhigaya dad xaqa si ay hadalkiisa ugu qabtaan oo ay ugu gacan geliyaan talada iyo amarka taliyaha markaasay weydiiyeen oo ku yidhaahdeen macallimow waxaanu ognahay inaad si hagaagsan wax u tidhaahdo oo wax u bartid oo aanad ninna u eexan laakiin aad jidka ilaah run ku bartid ma xalaal baa inaannu cashuur kaysar siino ama inaanan siin laakiin khiyaanadooda wuu gartay oo wuxuu ku yidhi diinaar itusa yaa leh masawirkan iyo qorniinka ku yaal waxay ku yidhaahdeen kaysar baa leh markaasuu ku yidhi haddaba kaysar siiya wixii kaysar leeyahay ilaahna siiya wixii ilaah leeyahay hadalkiisa way ku qaban kari waayeen dadka hortiisa wayna ka yaabeen jawaabtiisa oo way aamuseen waxaa u yimi qaar saadukiina kuwii odhan jiray sara kicidda kuwii dhintay ma jirto oo waxay weydiiyeen oo ku yidhaahdeen macallimow muuse wuxuu noo qoray nin walaalkiis hadduu dhinto isagoo naag leh oo aan carruur lahayn walaalkiis naagtiisa waa inuu dumaalo oo uu carruur walaalkiis u dhalo haddaba waxaa jirtay 7 walaalaa kii ugu horreeyey naag buu qabay wuuna dhintay carruur la'aan kii labaadna wuu guursaday oo kii saddexaadna waa dumaalay sidaasay 7dii u wada guursadeen carruurna kama ay tegin wayna dhinteen kulligood dabadeedna naagtiina waa dhimatay haddaba wakhtiga sara kicidda kuwii dhintay iyaga keebay naagtiisa ahaan doontaa waayo 7duba way wada guursadeen ciise wuxuu ku yidhi wiilashii wakhtigan waa guursadaan guurna waa la siiyaa laakiin kuwa loo xisaabay inay istaahilaan inay gaadhaan wakhtigaas iyo ka soo sara kicidda kuwii dhintay ma guursadaan guurna lama siiyo waayo kol dambe ma dhiman karaan maxaa yeelay waxay yihiin sida malaa'igaha oo waxay yihiin wiilashii ilaah iyagoo wiilashii sara kicidda laakiin in kuwii dhintay
la sara kiciyo muuse ayaa tilmaamay xaggii geedka markuu rabbiga ugu yeedhay ilaaha ibraahim iyo ilaaha isxaaq iyo ilaaha yacquub laakiin isagu ma aha ilaaha kuwa dhintay laakiin waa ilaaha kuwa nool waayo dhammaan isagay u nool yihiin culimmada qaarkood ayaa u jawaabay oo ku yidhi macallimow si wanaagsan ayaad u hadashay kol dambe kuma ay dhicin inay wax weydiiyaan wuxuuna ku yidhi sidee bay u yidhaahdaan masiixu waa ina daa'uud qudhiisa ayaa kitaabkii sabuurada ku leh rabbigu wuxuu sayidkayga ku yidhi mudigtayda fadhiiso ilaa aan calaawayaashaada cagahaaga hoostooda geliyo haddaba daa'uud ayaa ugu yeedhay sayid oo sidee buu wiilkiisa u yahay dadkii oo dhan oo maqlaya ayuu xertiisii ku yidhi iska jira culimmada oo doonaya inay khamiisyo dhaadheer ku socdaan oo jecel salaanta suuqa iyo kursiyada hore oo sunagogyada iyo meelaha hore ee diyaafadaha kuwa wada laasta guryaha carmalada oo tukashooyin dhaadheer istusidu tukada kuwaas waxay heli doonaan xisaab aad u daran